wuxuu dhaceen inan aan saaxiibnahay baan israacanay barnaamij dalxiis baan wada aadaynay kadib waxay igu tiri inan baa ku soo maraysay soo raac kadib tagsigii dhaweeyaha iyo inan saaran baa soo maray waan raacay suuqa markaan marayay baan qaraacay aan ku yiri tagsigii waan soo raacay kumee waxay igu tiri inan baa sii qaado waan ka horeeyaa sidii baan ku tagay buurta kala jeexan meel xagga ka xigto aan markaa ku balansanayna tagno ayaan tagay saa markaan gaadhiga ugu degayna nambarkii waa laygu bilaabay qoriba xagga dambe layga dhuftay basbaasna waa laygu shubay goobta maxaa kasoo qabanaysay inaa ka doonteen marka hore sawiraan iyo fiidiyoway tiktok iyo inaan waxaa soo duubano ayaanu tagnay marka dhalinyartan falkan geysatay dhalinyar intee ag baahay waxa anu ila socday inan iyo inan aqoon ma isu lahaydeen marka hore israaciisay maya inanta anigu aan garanayay igu soo dartay oo ma garanayay inankan iyo inantana maan garanayn kuwa idilayna maan garanayn maxaa dhacay markii ay goobta tageen ee gaariga ka soo degteen gaarigii markaas ay uga degeen oo daaqadiiba xidhan ayuu ninku iga jaray qori xagga dambe madaxaan ka dawaqay basbaas bay inana igu shubtay meesha taagnayd bacdeen maxaa dhacay bacdeen waxaa dhacay in dhulka la dhigoo la dilo ninkuna caloosha iga laado ama tago kadib markii la jilciyo kadibna video baa layga duubay sababta lagu dilayay adigu ma garanaysa maya ma garanayn markii dambe ma ogaatay markii dambe waan ogaaday maxaa lagu macneeyay waxaan ku ogaaday iyadoo inaan leedahay u duub shiine culeha arkay u duub ayaan anigu dareemay marka ujeedadu maxay noqotay ujeedadu waxay noqotay hablahan dilayay inan kamid ah ayaa nascaan lagu dilay waa inan istileen markaas darteedu bay inantii aan isku qabiilnahay un bay dilaysay marka inantaa hore ee laascaanood waxa weeyaan falkan ku geysatay inantaas nascaanood falkan ku geysatay anagu de kale ehel waan nahay oo magac guud baan wadaagnaa laakiin ehel isku sii dhowna ma nihin mana aqaano anigu kadib maxaa dhacay markii ay ku dileen ee ku geysteen waxa ay ku geysanayeen maxaa markii dambe yaa ka soo gaaray sida soo xudhay markii dambe wallahi walaalihiigu idilaya maxaan ku dhaday fiidiyowga waa layga duubay malaha waa la soo dhigay inama yaryar baa iga soo gaadhay inamadii yaraa markay arkeen bay yaaceen inamadii yaraa baa riiday xataa dirac ay aan xidhnaa way igu dilaaciyeen inan gurigana ka soo baxday dirac bay igula soo carartay oo lay xidhay kadib lambarkii xaafadeedan soo qaraacay markaan saa isir lambarkii ula hadal baan kooma galay waay inteed ku jirtay koomada waxaan galay koomada adigu ilaa waxay ahayd maqribkii meelaha maqribkii bay ahayd waxaan ka baxay ilaa 12 habeenimo marka sidee isu hesheen ehelkii iyo family-gii sidee hadii aad koomada gashay xaaladaas ay dhacday xaaladaas markay dhacday waxaan isku helnay inamadii aniga lambarkii laga qoray way qabteen xaafadeedu xataa telefoonka way qabteen kadib inamadii yaraa iyo inantii igu qabatay marada ayaa qaraacay oo u sheegay si wuxuu dhaceen way talaabo maxaa qaadeen oo ku saabsan arintan iyo u gudbiseen laamaha amniga ma u gudbiseen walaal talaabo waa la qaaday oo dawladdu ay ku tala jirtaa baaritaan badanna waa la hayaa wali se lama helin waana ku rajay weynahay in la soo qabto sharciga la horkeeno